aynu daaha kaga qaadayno boqorka Sacuudiga oo ka mamnuucay Sheekh Cabdiraxmaan Sideesi inuu khudbad dambe ka jeediyo xaramka Maka kana qaaday xilkii uu ka hayay xarameynka barakaysan. waase maxay sababta loo cuskolay xilka qaadistiisu? ku soo dhawaada barnaamijka. boqorka Sacuudiga boqor Salmaan bin Cabdilcasiis ayaa casilay sheekhii u sareeyay culimada xaramka barakaysan ee Maka al-Mukarrama Sheekh Cabdiraxmaan Sideesi kadib markii sheekhu ka dheereeyay kacaanka oo khudbadii jimcihii la soo dhaafay uu xaramka ka akhriyay ku taageeray heshiisyada lala geli karay Yahuudda. dabeetana loo fahmay inay khudbadu hordhac u tahay xiriir ay boqortooyadu la samaysan doonto Israa'iil. sida ay warbaahinta Sacuudigu baahisay, Sheekh Cabdiraxmaan Sideesi oo muddo dheer ka mid ahaa imaamyada masjidka xaramka Maka haatanna haya xilka agaasinka guud ee arrimaha daryeelka xaramka barakaysan ayaa looga yeeray qasriga boqor Salmaan bin Cabdilcasiis, halkaa oo uu boqorku carab ballaaran kula dhacay sheekha, canaan fara badanna u jeediyey, una sheegay in aanu ka leexanin dariiqa ay marayso dowladnimada Sacuudiga iyo mabaadi'deedu. Sheekh Cabdiraxmaan Sideesi ayaa isku dayay xilliga inuu beerraxowsado boqorka, kuna dooday inaanu khudbadiisii ula jeedin inuu kaga baxo dariiqa dowladnimada, laakiin uu u jeeday uun wanaagga ay leedahay isfahamka iyo isa saamaxaadda bani'aadamka, isagoo sheekhu intaa ku daray in warbaahinta gadar iyo Turkigu leexiyeen macnihii khudbadiisa iyo ujeeddadii uu ka lahaa. boqorka Sacuudigu kama hoos qaadin baa la leeyahay sheekha cudurdaarkiisa, waxaana uu sheegay inuu xilkii uu hayana ka qaaday, maanta wixii ka dambeeyana aanu xaramka khudbad ka jeedin karin. waana ihaanadii ugu weyneyd ee uu galabsado sheekh heerkaa ka gaadhay culumta islaamka oo haddana ku dhex milmay siyaasado gacan ku rimisa oo aanay bulshada boqortooyada iyo ta guud ee caalamka islaamka toonna aanay doonaynin. waxaa la arkayay jimcihii hore ciidamo badan oo boolisa oo sheekha hareeraha ka taagan markii uu khudbadda la macaamilka Yuhuudda ku saabsanayd ka akhrinayay masjidka xaramka Maka. waana khudbadii uu kala kulmay dhaleecaynta ballaaran ee keentay in haatan la casilo. waxaana loo arkaa xilka qaadista sheekhu inay tahay tallaabo muhiima oo uu qaaday boqor Salmaanka Sacuudiga, taasoo wax weyn ka beddelaysa aragtidii laga haystay boqortooyada. isagoo boqorka Sacuudigu xiriir telefoon oo uu salaasadii la yeeshay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ku wargeliyey in boqortooyadu ku taagan tahay qorshihii ay 18 sano ka hor soo jeedisay ee jaamacadda carabtuna ansixisay, qorshaha oo ahaa in xal cadaalada loo helo qadiyadda Falastiin, taasina ay fure u tahay xiriir buuxa oo carabtu ay la samaysato Israa'iil.